السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا أصحاب الجنة كينا واحد كسحيسة إذن لا اسكسو نقد وناكسنا صحابي ميلو البددوك كجوكتين وان دين سلامي وحادين رجينا يا عافمات يا عند الله عبادة صوبا إن شاء الله. وانا كم هاتي سيدا قروح البضان لا يلي سعوتين صحابي وانا كم فرحسنا سيدا سبسكرايب قروح البضان لا رقدك إيدوسو سينيسين كومنتي دينا آد إيدي ريقليين وان كهلاي وانا إذكا مهد علينا يا إن شاء الله. انت marka ugu gudbo waxaan rabaa inaan maaragtay aan barnaamijkeena aan hore u sii galo asxaabay maanta waxaan rabaa inaan maaragtay aan barnaamij aan ka hadlo insha Allah gabar barnaamij ii soo dhiibatay oo maaragtay ma sha Allah ila tali igu dhahday barnaamijkan maanta waa ila tali asxaabay dhankayga Instagram-ka igala soo xiriirtay insha Allah hadii aan Instagram-kayga u baahan tihiin TikTok-gayga uu kor ka saaran yahay insha Allah soo follow gareeyo marka asxaabteeda waxaan kaloo idin ka codsanayaa inaad maaragtay mar walba fiidiyoga aan like ii saartiin waa fiidiyoga marka mar walba daawatiin haddana aad like ii saarina taas waxay ka macno tahay intaasna waa iska kaftan ma fahanteen barnaamijkeena hore u galeynaa oo ila taliga insha Allah marka gabadha magaceeda ma rabo inaan inta ka sheego insha Allah gabadha marka magaca u bixinayna gabadha waxaan u bixinaynaa huda ayaan u bixinaynaa insha Allah doo ilaahay karaale noqdo xoo ahay كدبنا برنامج كنا هو سيقلنا واحد هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانكو سلامي أبايو معانا هذا حلكس رمنا هانتي آد أيانكو سلامي أديك إيه في ملكاكا إتري كدب بحيتر أبايو أنيقا وحان كنو والله مقالة إتري نيروبي وحان كنو والله مقالة نيروبي وحان أهي كو إلا 20 سنة جر إتري أبايو بحيتر وحان إسجعلاني إتري ويل isla ila joogo magaalada Nairobi ee dhahday ma ay isi sheegin meesha maaragtay ay ka joogto kuma qorna meesha marka waxay dhahdaa abaayo Nairobi ayuu ila joogaa kadibna waxay tiri wiilkii waan isjeclaanay markaan isjeclaanay waxaana dhex maray xariir ee tiri kadibna waxay tiri wiilkii aniga waan jeclaaday kadib abaayo waxa igu dhacday ee tiri run ahaantii nabar aanan ka filanaynin ee dhahday aniga wuxuu ii soo dhaweystay tiri si wanaag iyo xushmad ee tiri iyo ku jirto ee tiri xushmad iyo naxariis ee tiri kadibna waxay tiri waxaan u qaaday ee tiri jacayl abaaya kadib waxa igu dhacay ee tiri wax aniga aanan ka filanaynin ee tiri taas oo ah ee tiri wiilka wuxuu igu soo qaatay ee tiri lacag ee tiri asiga oo u argudayo ee tiri wiil aan Soomaaliya xariir aan ku lahaan jirnay ee tiri on aniga aan xariir aan lahaan jirnay ee tiri kadib abaayo waxay tiri muddo waxaan wada soconay ee tiri 6 bilood ah ee tiri 6daas bilood waxay tiri run ahaantii maanan ka shakin xitaa moonan u tusin hal maalin ee tiri wax aniga aan ka caroodo ama aniga dhibaateeyo ee tiri kadib waxa igu dhacay ee tiri filawaa aanan ka filanaynin ee tiri maalin maalmaha ka mid ah ayaan waxaan ku arkay ee tiri magaalada Nairobi meel dadku ay isugu yimaadaan ee tiri kadib waxay tiri wuxuu la taagnaa ee tiri gabar maanan la hadlin ee tiri oo waan ag maray asigana wuu i arkay abaayo muusan isoo daba kicin ee tiri xitaa muusan isoo wicin aniga waan iska baxay ee tiri waxaan tagay xaafadii anigoo marxaladeeda aan la qiyaasi karin ee tiri kadib waxay tiri waan wacay habeenkii oo waxaan ku dhahay haye salaam calaykum aan u qoray ee tiri markuu iga qaban waayay ee tiri xoogaa farta isku dardartay salaam calaykum ayaan u qoray ee tiri abaayo qoraalkeygii lama furin ee tiri qadkana wuu soo galaa ee tiri ilaa iyo habeenkii oo dhan ayaan wacay ee tiri cidna igama qabanaynin kadib 2 maalin ka bacdi ayaan waxaan ku arkay ee tiri magaalada si toos ah ayaan u hortagay markaasaan ku iri maxaa dhacay caafimaad soo ma jiro macana maxaad iiga qaban weyday teelka oo maxaan ka galabsaday aniga markaasuu igu dhahay hadda orod iska bax aniga ayaa ku soo wacayo waxa jira barobaleen aniga ii gaar ah anigoo aad u walwalaaya ayaan soo baxay ee tiri kadib waxaan imaaday xaafadii run ahaantii ma qiyaasi karin ee tiri meesha la iga jiro iyo meel kale wabacdeen waxaan sugaaba wicitaankiisii ee tiri kadib ma uusan isoo wicin habeenkii oo dhan anigoo sugaaya ee tiri ayaan subaxdigii waxaan ku gaaray fikir iyo walbahaar ee tiri wuxuu isoo wacay maalintii ee tiri 5 saac iyo 25 daqiiqo ee tiri ayuu isoo wacay
waan ka qabtay teleefoonkii tiri oo waan booday waan naxay tiri waan dhididay tiri anigoo dhan waxaan noqday tiri qof lugaha iyo gacmaha tiri aysan ku oolin tiri kadib waxaan ku iri oo maxaa jiro ma dhib adiga kuu gaar ahaa ku haysta macaana ii sheeg dhibka ku haysta wuu inaga dhexeeyaa kolkaasuu igu yiri haddaba maanta waxaan rabaa in aan kuu sheego xaqiiqan in badan adiga aan kaa qarinayo markaasaan ku dhahay waa maxay xaqiiqada markaasuu igu dhahay ma taqaanaa hebel waa wiilkii aniga aan xiriirka aan lahaan jirnay ma rabi inaan magaciisa aan inta ka sheego markaas waxaan ku dhahay haa aan ku dhahay tiri markaasuu wuxuu igu dhahay abaya aniga waxaan nahay hebel saaxiibkiis waxaana ballan uga galay inaan maaragtay aan u soo aargudo waxaana waa wax aargudasho ah oo aniga iyo saaxiibkayga aan kasoo wada shaqeynay run ahaantii xilkas ma aqaano tiri dareenkayga meesha uu maalintaas u gaaray waxaan ku dhahay miyaad igu ciyaaraysaa calafku wuu dhammaadaa labada qofna way kala haraan hadda aniga ayaa xiriir naga dhexeeyaa adigoo sidaas ii qiyaamay haddana waxaan diyaar u ahay inaan xiriirkeennii iska sii wadanee hadda sheekadaas meesha inooga xir xitaa waan baroobeeyey ayay tiri markaasuu wuxuu igu dhahay aniga adiga kuma jecli gabar kale ayaan jeclahay waxaan kaa codsanayaa in aad maaragtay igala soo taliso tiri arrintan fikradihiinana muhiim ayay ii yihiin tiri adiga iyo asxaabtaada run ahaantii waa cajiib kaas maxaan dhihi karnaa asxaabta kaas wixii dhihi lahaa idinkaa laydinka rabaa kaas nin maaha waa naag war u qaada naag iska daba wareegaan qof dhan ee adigu aaminay sidee adisas ugu galaysaa run ahaantii waxaa soo dhahniin waa arkayna asxaabay usoo duceeyay inuu ilaahay iyadana qalbigeeda u dejiyo marka videogana ma rabi insha allah inuu idinku dheeraado meeshaasaa uga harayaa wax kaloo sheegaba ma aqaano laakiin ani tala ka ahaantayda markii aan bixin lahaa oo aan tala aan ka bixin lahaa waxaan dhihi lahaa abaya calooshaada ka xiro hadduuba ku cadeeyay inuu maaragta uu aargudasho u socday maanta hadduu wax kale kaa samaysan lahaa kawa hadduu maanta wax kale kaa samaysan lahaa soo kama sii darnaan lahayn oo jidkaaga tegi lahaa run ahaantii ani waxaan ku dhihi lahaa alxamdulilah intaad dhahdid salaadaada duko ilaahaaga u noqo faraha ka qaad asigoo dhanna baloogiisa ku qabo niyadaadana ka duubo kulley asxaabteedana waxay soo dhahaan waa arkaynaa insha allah waa xil kasoo idin leh isku soo noqod wanaagsan meel walbo aad joogtiin waxaa idin leeyahay nabad iyo barwaaqo iyo naxariis ku noolaada sabskraibkana waa xaggiina